waxaan u soo joogay xog baan helnay anigoo taliye abniya hoo taliye baan xog helnay waxaana loo keenay liis nimanka shabaabka nala shaqaynaya waxay noo keeneen shabaab waxay dhaheen liiskan oo dowladda ka mid ah way nala shaqeeyaan ogaada waa dad magacii iyo qabiilkii iyo meeshuu ka shaqeeyay iyo mas-uuliyaddii baa ku qoran waxaan xasuustaa waxaan idhi war dadkan aanu ka howlgalno waaba waa cali maxamed waa la yaqaana aan ka howlgalno de waa dad la yaqaano dee farmashiga cali maxamed ama farmashiga xabiibe camal loo yaqaano soomada garan waxaa laygu yidhi ninkii aan hawsha ula tego markaas iga habboonay wuxuu ugu yidhi war heedhe shabaabku qidada isticmaalayaan waxay tahay dadkay isha ka marmara waayeen bay doonayaan inay nagu diraan marka waan fahamsannahay maaragtay qorshahooda iyo istaraatiijiyadooda ka yeeli mayno warqadii iska tuuro war haddii aanu hubin dabagal ku samayno ninka nala shaqeeyo lacag baan ku siinaa inuu xogta noo soo gudbiyo shabaabka dhinacooda soo maan waana nin shabaab aanu ka daba tagno arrintan iska dhaaf waxaa noogu muhiimsanaa jire anigu kama shaki karo dee wixii wasiirkii iyo taliyihii iyo ma aqaana isaqaa baan uga shakiyey laakiin waxaas leeyahy waa faham darro waxaa dhacda marka maalmaha ka mid a baarlamaankii baa shirayay baarlamaankii oo shir haysta baa laygu yidhi adigaa mas-uulka ah baarlamaanku adigaa mas-uulka ah oo amniga baarlamaanka mas-uulka markaas ka horna baarlamaan dhowr jeeraa la galay marka waa break fiicanaa la kala qaatay oo layskuma imaanayn waxaan ku qasbanaa marka inaan meel kasta farta geliyo si aan u sugo ammaankaas baarlamaanku inuu qabsoomo maalintaas ciidamaa la isiiyey waxaa la yidhi adaa mas-uulka ah meelaha ugu muhiimsan ee baarlamaanka laga soo gelayo liiskii nala siiyey nin kamid aha ku jiro taliye ka ah waaba taliye ka ah liisaska meel kamid a ganjeeladii geydadka baarlamaanka laga soo galo liiskii nala siiyey nin kamid aha ku jira waxaan la hadlay ninkii taliyaha waxaan ku yidhi wareedhe anugu uma sheegin sida waxyeen ku nin iga bedel ciidankan iga bedel maxaa dhacay iga bedelan ku dhawaa amar iga bedel waaya de galabtii baan ku iriyo shirku berri buu dhacaya habeenkii baan kusoo laabtay weli waa jooga wasiirkii baan wacay abniga waxaan ku iri ciidankaas iga bedel wasiirkuna xogta wuu hayay iga bedel ciidankaas meesha jooga waayo ugu yidhi subaxii baan way joogaa ilaa markii dambe anugu tuu imid anoo dee madaxu ma ahayn tuu imid ku yidhaa listen adiga iyo ciidankaadu baxa shaqada waa laynka joojiyey ilaa aan howl ilaa 4 saacadood soo socoto xaafidiina aada un ciidan kale meeshay keensada haddii khatarta intaas la eg iyo dhexgalka intaas la eg ee al-shabaab nagu dhex leeyihiin go-aan qaadashaduna ay sidaas uga adag tahay madaxdeenni maxaad ka sugaysaa waxa kale ee intaas waxaan xasuustaa intaan anigu joogay heed dhaqan la yidhaahdo anniversary sanad guuradii hay-adda nabad sugidda wax layidhaha la sameeyey dee waa ceeb waana qalad in hay-adda nabad sugiddu ay sanad guuro samaysato ay soo bandhigto askarteedii iyo saraakiisheedii waxaan xasuustaa taliye markaas joogo taliye bashiir goob buu ahaa wuxuu maadaama uu booliiska ka yimid marka wuxuu dee dareemayay in lasoo bandhigo qaab minan maaragtay la muujiyo awooddaada iyo maaragtay farsamadaada maalin marka waxaan xasuustaa lasoo bandhigay hay-addoo dhan waxaa la keenay bajaajyo halkaa lasoo safay de waxaan iskuu sheegaya dowladda soomaaliya waxay ka fahamka ee nabad sugid ka aaminsan tahay waxaa la keenay gaari gacano caasiyaal baa lasoo safay waa lasoo disbalay gareeyey markaas idaacadihii baa la keenay saraakiishii madaxweynihii xasan sheekh baa madaxweynaha cabdikariim guuleedaa wasiirahay waa la isugu waco safaa lasoo geliyo waa kuwa meeshaan beel weyn oo hay-adda gudaheeda markaasaa la yidhi waxaanu diyaarinay gaadiidkaas mujeedin calan buu hoos ku leeyahay mujeeda waa la garanaya waa lasii sheegay waxaa lagu garanayaa calaamadaasay leeyihin waa lagu qabtay taxigaas annagaa iskale waxaan la rabaa in suuqa loo diro qof shacabku qaato oo dee al-shabaabkii soo tiftifo soomada garan waxaas ka daran markii la gaaray maadaama dee ay faanka jecel yihiin madaxda soomaalidu markii la gaaray baa waxaa la yidhi hebel amaalmarinaa la dhiibaya shabaab uu eber ka dhigay cadowga ayuu laayay de wiilkan aad amaalmarinta ku siina national t v-ga hortiisa hooyadiis jaamacadna wuu u dhigtaa wasaaradda caafimaadkana uu ka shaqeeya ama waxbarasho maba ogaba inuu nabad sugid yahay soomada garan waxaan xasuustaa wiil
lagu qasbay inuu maalintaa shahaado qaato lagu qasbay inuu xafladda ka soo qayb galo wuxuu ugu yiri waxaan dhintay markii magacayga la iwaa markaas baan dhintay maalin dhaxaan arkay wiilka wali wuu nool yahay wuxuu ugu yiri 10 jeer ayaan qatar galay in 10 jeer ka intaasoo jeerna xabada la igu dhiftay waan dhima waay waxaad ku yiri marka waxay ahayd hooyaday waxay og tahay inaan iskool dhigto jaamacad dhigto wasaaradda caafimaadkana ka shaqeeyo hadday maanta iiga jeeda meeshaan u dhaa gurigeedaan ugu noqonahaa aqal fahamka Soomaaliya nabad sugid iyo abni dadka maanta haya ee aad leedahay ma u sheegtay war waxaasi wax ka weynaa loo sheegay waxaasi wax ka qatar badan inay ku dhaqmayaan waana nasiib darro aan cid la xisaabtamay ku jirin waayahay siyaasiyiintiinaan iyo shacabkii odayaasha dhaqanka inta badan markay weeraray qarxay dhacaan waxaad eedayn u jeedisaan dowladda odayaasha iyo shacabkii dhammaan siyaasiyiinta maxaa diidaya in eedaynta al-shabaab iyagan loo jeediyo oo dhowr qaraxyadan shacabkii waxaan ka daayay nin aad xoog canshuur ku siinaysid qasab ay tahay inaad canshuur ku siiso ma canaana kartid eedna uma jeedin kartid sababta waxaad awoodi weysay dukaankaadan yarka ah 3 mitir ee aad ilmaha uga raadsato $20 ayuu canshuur ku dul dhigay wiilkaadii iyo gabadhaadina bas uu ku qarxiyay shalay waaba ogtahaba hooyadaana waxa laga yaabaa maalin dhexdaas inuu dilay waad ku qasbantahay inaad siido canshuur qofka levelkaas jooga shacabka cid lama xisaabtami kare naftiisii baa suuqa taala wadnihiisii baa quraanshadii tuqsigu cunayaan Soomaaliya garan marka lama weydii karo qofka Soomaaliga maxad ula xisaabtami weys waxaan u maleynayaa dadku inay dhahaan shacabku haday dawladda la shaqeynayaan maxay ayagu shabaabka war shacab wax la yiraahdo ma jiraan war dadka beerkii baa bislaaday war dadka waa la xukumaa hooyo wiilkeedu wuxuu yahay taqaana ma jirto dawlad la isku haleeyaa ma jirto Soomaaliya markaad fiiriso go'aanka qofka ugu sareeya iskale ani hay'adda nabad sugidda markaan ka shaqeynay waxaan xasuustaa waxyaabo oo aad uga bedelan waxyaabaha hay'adu ku shaqeeyaan ku shaqeynay wax kalena ma ahna go'aanka waxa qaadanay qofka awood badan waxaana aan ehel u lahayn Soomaaliya garan wax tan hadda aan ku sheegayo wax ka muhiim marka kale waan u bandhignay ama waan u bandhigay wax ka muhiimsan aan soo bandhig wax ka fudud wax lagu badbaadi karo laakiin madaxweynuhu ama wasiirka amnigu ama taliyaha amniga ka sareeyay muhiim ma aha waxaas dan weyn kama gala